caawa waxaa ila jooga Cumar Cali Xasan Cumar Serbi loo yaqaan Cumar Serbi waxa weeyaan wariye ka howlgala warbaahinta Soomaalida waxa tusaale oo afan hadii la maqlo waxa la xasuusanayaa heesidii iyo waliba suugaanti kala duwan isagoo magaca guud xataa ciyaartooygu waa wuxuu ka shaqeeyaa afan miyiga wixii qiimaha kala ahaa ka duwan wax macna nolol ka duwan baa timid bila aadankii qaabkii uu noolaa iyo Soomaalida sidii maartay la isku dhex jiray way isbedeshay wixii loo adeegsan jiray ereyadii iyo maaragtay iyo qaabkii waxa soo dhex galay yana qalab marka de waa nin miyi joogay oo hadana magaalo yimid marka farqiga isbedelka ku dhacay ay mu noqonayaan reer magaalo iyo reer miyi de Cabdisiniimo oo baabuur kaga jabay gobolka Awdal ayaa de ma garanaysaa soo saaray salahan bilwada kala marka waayo qaraamku runtii waa fanka Soomaalida waxaan ilaadaa marka qaar hadii xataa fan kala soo bixin qaraanku Soomaalida ku filan marka baabuurta dhulka kale ee miyiga si socota ayaa soo mari jiray meesha marka gaari guuxiisa maqlo oo ku soo dhawaan jiray jidka si aan u maqlo heesta ka baxays iyo kaalinta buugani uu ka gelayo in ay noqonayso uun hadii guri la dhisayo waxa xabad kale u jaajura oo isagoo sii dhiganta inuu noqonayo runtii hadalkii qalala oo la qorxiyay in loo yeeray dariiqo loogu dhawaaqi karo loo sameeyay qaab qofku ku soo celishan karo sheekooyin badan oo xiiso badan oo aynu xiisayn lahayn oo hadii luuqada lagu turjumana dunida lafteeda macna u sameyn lahayn ayaa waxa looga gaabsadaa wasir iyo la faragelin taasa horta keentay wax badan assalaamu calaykum kusoo dhawaada codka ubax oo aad ka daawanaysaan Astaan TV bogga codka ubax ee YouTube-ka sidoo kale aad ka dhageysanaysaan adeega podcast-ka caawa waxaa ila jooga Cumar Cali Xasan Cumar Serbi loo yaqaan Cumar Serbi waxa weeyaan wariye ka howlgala warbaahinta Soomaalida runtii aan aad u jeclahay waxyaabaha uu qabtay ee bulshada uu qabto ama kaalinta uu kaga jiro oo ah kaalin aan anigu lafteedu jeclahay inaan wax ka ogaado wax ka barto oo ah fanka iyo fanaanka taasoo ugu magac daray runtii buugiisana fan iyo fanaan Cumar marka hore ku soo dhawaad koobax waan dhawahay Ismaaciil waan ku faraxsanahay runtii martiqaadkan aad samaysay iyo inaan fursadan aad siisay inaan dadka tirada badan ku xiran codka ubax oo anigu aan kamid ahay inaan kamid noqdo oo dadka maartay fursad iyo chance kan helay inaan kamid noqdo runtii waan ku faraxsanahay waan ku mahadcelinay walaal aad u mahadsantahay hargeysa dhawaan baad timid adigoo buugan gardaadinaya dhawaan baad soo bandhigi doontaa insha Allah iska waran waa okay waa runtii hargeysan buugan aan rabaa inaan ku daafuro insha Allah buugan waxa la yiraahdo horta fan iyo fanaan wuxuu koobsanayaa laba magac oo sina xiriir uga dhaxeeyo haddana magac ahaan farqi yar u dhaxeeyo fanku waa magac guud oo ka dhaxeeya farshaxanka dhan waxa qayb ka noqon kara qaabkan quruxda badan ee studio-han u diyaarsan yahay waa fan sababtoo ah waxa laga yaabaa qaabkan loo diyaariyo oo sida quruxda badan leh u fadhida iyo microphone-kan iyo computer-kan iyo qof kale inuu isagu si kale u arki la oran lahaa dhinaca kale waa in laga soo jeesto marka wax kasta oo maskaxda bini'aadanka space uga banaan yahay ayaa la yiraahdaa horta fan si guud laakiin waxa jira wax Carabiga la yiraahdo al-calam bil ma'rifa oo ah magac guud oo dadka dhaxeeya laakiin cid wax gaar ah lagu yaqaan waxaasi waxa xoogay waxa tusaale oo afan hadii la maqlo waxa la xasuusanayaa heesidii iyo waliba suugaanti kala duwan isagoo magaca guud xataa ciyaartooygu waa wuxuu ka shaqeeyaa fan kaas kan kale xirfadii ka shaqeynayna waa fanaankii waa xirfadoolih waa art and artist marka buugan oo runtii aynu kana sii sheekaysan doono ayaan horta aan rabay meeshan ku gardaadiyay Hargeysa oo dabcan iyadoo aan filayo Hargeysa astaamaheeda waxa kamid ah fanka oo waxa tusaale inoo waade heesta Cabdiraxmaan Dheer iyo suugaantii kala duwaneed laga hadlayay Hargeysa iyo
inay hooygii fanka tahay oo dabcan ah magac mar hore ay qaadatay oo tusaalaheeduna nool yahay oo inta qof maaragtay aan baxday fanka udub dhaxaad u noqotay wax ku tartay Soomaalida iyo afkeenaba sumcadda u soo kordhisay meeshan ku hana qaaday maaragtay ceelka Hargeysa maaragtay fankii ka dab qaaday Soomaaliya oo dhan buu ifiyay xaqiiq marka buugan oo wax badan oo macluumaad kala duwan ku qoran yihiin ayaan horta aan rabay daahfurkiisa insha Allah dhulka kale Soomaalidana waa inuu gaaro oo dadku ay fankooda laba qaybood oo qaarna waa wax ku cusub qaarna xusuusin iyo wixii ay yaqaaneen oo hal meel isku keenay ayay runtii u noqonaysaa marka walaal inahaas horta Ismaaciil oo aan waday horta Umrow buugan oo aan runtii anigu aad aan uga helay wuxuu noqon doonaa marka laga tagay inuu macluumaad badan sido marka laga tagay inuu xogo badan oo xambaarsan yahay haddana wuxuu abuurayaa baan anigu aaminsanahay baraarug faneed oo tusaale ahaan waynu ka hadli doonaa fanku siduu kusoo bilaabmay fanka casriga ee Soomaalida sidii ay bulshadu arki jirtay iyo maanta heerka uu soo gaaray iyo kaalinta uu buugani uu ka gelayo in ay noqonayso uun haddii guri la dhisayo oo xabad kale u jaajuura oo isagoo sii dhiganta inuu noqonayo runtii mid kale xogta ku jirta lafteedu ha noqoto mid kugu cusub ha noqoto mid hore oo taqaanay oo iska ku tiri ku teenahayd oo meesha ka baxaysa ha noqoto mid aanad ma garanaysaa ku baxsanaynba oo si uun kuugu ifinayo xogo badan oo noocaas ah ayaan anigu horta runtii ka faa'iiday qaar badanna waan dul istaagi doonaa waxaa kamid ah jacaylkii Maxamed Cali Kaariye oo kale iyo Shankaroon oo kale heestii kuwa loogu magac daray oo kale khaladka laga fahansanaa iyo sheekada dhabta ah ee ay wadato waxyaabahaas marka waa tusaale unbay iga tahay haddii aan dib u noqono fanka iyo bilowgiisii sidiisaba horta fanka reer magaalka maxaa looga jeedaa horta ummadda inta fahamkaygu uu sheegayo bini'aadanku weligiiba fan buu lahaa waxaana fan dee u ah markaa wixii isagu dabeecadiisa iyo qaab nololeedkiisa iyo farxadiisa iyo murugadiisa iyo wuxuu cabiraya iyo wixii uu kusoo bandhigay horta waa fan bay noqonaysaa wuu sawiri karaa oo waa dareen qofku kusoo bandhigi karo wuu heesi karaa wuu gabi karaa wuu geeraari karaa waxaasoo dhani waa qaab faneedyada kala duwan ee insaanku leeyahay hooyooyinka marka dib loogu laabto dee taariikhu waxay sheegayaan gaar ahaan innaga waxyaabaha qoraalka nagu soo gaadhay la isku waafaqsan yahay oo igu dhowdahay suugaanta carabta dee suugaanta kala duwan ee qaarkood iyagoo qaab manhajeeda nagu soo gaadhay waxay xambaarsan yihiin waa fankaasina dib haddii loo maaragtay lagu laabto waxay ka tarjumaysaa uun qaabkii ay u noolaayeen wixii u muuqday qofka qof jeceli kontakas ahaan iyo waaqic ahaan siduu usoo bandhigayay xaaladaha dagaalka iyo qaabka fan ahaan maaragtay qofku doorkiisa u qaadanayay Soomaalidana dee magaalo galkoodu maba fogaba oo dee magaalooyinkeenaba maaragtay marka laga yimaado meelaha xeebaha oo iyagu ka yar cimri dheer magaalooyinkan kale dee waa 100 iyo wax la jiraba maaragtay taariikhdooda marka dee fankii magaalooyinkaas ka dhex abuurmay horta weeyaan fanka reer magaalkii waana dowladnimadeena dee waaba yarta waaba dhowdahayo dee xilligii dhulka Soomaalida gumaysto ka tagay waxa laga joogaaba 62 sano waa waqti dhow yada lafteedo dadkii baaba joogaba waqtihay dib haddii lagu laabtana xarumaha fanka lagu wadaago idaacadaha iyo tiyaatarada iyaguna waa cimri aan ka badnaynba oo tiyaatarada waaba ka dambeeyeen laakiin idaacaduhu way u weynaayeen idaacada Radio Hargeysa iyo Radio Muqdisho iyagana way dhowdahay oo 43 iyo 52 weeyaan maana marka fanka reer magaalka waxa laga wadaa qofkii Soomaaliga ahaa ee miyiga joogay wuxuu yaqaanay fan oo ciyaarahana uu isticmaalo xoolaha ku waraabsado guryaha iyo kabada iyo maaragtay iyo ku dhisto beeraha uu ku qoto laakiin fankaasi wuxuu ahaa fan dhulkiisaasi iyo maaragtay dhulka miyiga ku sugan markii magaalada la yimiday xadaaradu way isbedeshay miyiga wixii qiimaha kala ahaa
wax macna nolol ka duwan baa timitay bila aadankii qaabkii uu noolaa iyo Soomaalida iyo sidii maartay la isku dhex jiray way isbedeshay wixii loo adeegsan jiray erayadii iyo maaragtay iyo qaabkii waxa soo dhex galay yana qalab marka de waa nin mii joogay oo hadana magaalo yimid marka farqiga isbedelka ku dhacay ayuu noqonayaa reer magaalo iyo reer miyi laakiin fankeena inaga inta badan waxa asaas u ahaa nolosha miyiga ilaa xilligan inkasta oo markaas de maaragtay fahamkii dadka oo isbedelaya suugaanta wixii loogu cabirayay hadana isbedelayso laba waxba runtii loo baahan in la iswaafajiyo fanku waa qayb kamid ah cilmiga guud ee loo yaqaan communicationka isgaarsiintu si guud soo hoos gala communicationka ama isgaarsiintaasna shardi bay leedahay wax la yiraahdo KISS oo ah keep it simple oo ah in wax fudud oo qofku fahmi karo loo sheego marka iyadoo saas tahay hadana suugaanta waxa la rabaa in lagu ilaaliyo afkii iyo dhaqankii iyo ereyadii wixii oo dhan mana ninkan miyiga magaalada jooga dhalinyarada reer magaalka waxa loo baahan yahay sidii la isku waafajin lahaa ereygii xoolo dhaqatada oo isticmaali jirtay beeraleyda isticmaali jirtay ninka xeebaha xajoo isticmaali jiray in suugaantii loo soo geliyo haddana waxa la rabaa wuxuu fahmi karaa in loo sheego oo ereyga hadii la isticmaali waayo saasoo ku luma oo de kelmaddu waxay waartaa inta la isticmaalayo laakiin hadii ereygii maartay erey kala soo galaya kadibna saasoo ku dhimanaysa marka waa waxyaabo runtii u baahan in de discussion dheer laga galo iyo falanqeyn kadibna xal waara loo raadiyo marka fanka reer magaalka waxa looga jeedaa de waa qofkii Soomaaliga ahay fankiisa la soo guuray magaalada la soo galay marka la eego intii fankii yani waxa suugaanteena sideedaba ama reer guraaga markayna ama reer miyiga inahay dadku waxay hees hawleed bay lahaayeen suugaantuna saas sheegtay gabay bay ahayd oo waxayd communication warbaahin bay ahayd waxa la isku gaarsiin jiray warka la isku tibin jiray oo de jaraa'id iyo idaacada ma jirin waqtigii hore marka warka la isku gudbin jiray suugaanta marka heesu waxan bay u kala bixi jireen suugaanta iyo fanka Soomaalidu bariga inay warbaahin ahaan ama colaada iyo waxyaabaha ay ka shaqeyso iyo in hees hawleed ah oo hawl maalmeedka qofku maalintii uu ku qabsado waxa dheerayd in yaroo habeenkii lagu caweeyay laakiin markii magaalada la soo galay maxay tahay baahidan keentay in fan cusub oo noocan ah يعني واحد مودع حضارتي ولا كان قاضي فنك لفتيسي موقت وار وانا اسمع له هتا حضارته وارن ان حضارتي اذا ماشي waxa ku jira markasto bilaadanku oo cid kala xiriir la sameeyo de magaalada waxa ka bilaabma waxa la yaqaan globalization ku xog ama edegeynta ama dadkan ay ku xirmaan magaalada ka bilaabmata waayo baahiyaha yaala waxay keenayaan qofkan inuu baahan yahay cid kale inuu la tacaamulo ama qaab maartay bad hawl ka tacaamulo ama diyaarad hawl tacaamulo ama si kale taasina qofka kale thaqaafadiisa cilmigiisa aqoontiisa wata marka way saameynayaan wixii isa saameyntan de xadaaraduhu way isku gudbaan oo inaga fankeena bilowgiisi marka laga yimaado dadkii hibooyinka deelahay inay gabiyaan ama inay maartay wax number aad u badan oo runtii la xusi karo ay tahay marna inaan la ilaabin waxa saameyn inagu leh dunida carabta intii marka madax fiiqnayd ee maaragtay dadka abwaanada waxay ahaayeen dad cilmi carbeed si uu soo arkay qalabkii aan tumanay oo dafka iyo kabanku aabiyo hooyaba ahaayeen iyagana wuxuu naga soo galay carabta marka isku talawga iyo wada xiriirkaas ayaa horta wax weyn keenaya tan kale ku saabsan de baahidi markasta ay maaragtay badato qofku wuxuu u baahan yahay wixii uu kula falgeli lahaa waxaas magaalo la soo galay magaaladii waxa wada jooga dadaan kala duwan kala aqoon duwan kala qabaa'il duwan marka si kasta waxa lagu waajahayaa nolol ka duwan
tii hore fankana taasba macnaa miqyaasi u ah tusaale ninkii la odhan jiray cilmi ismaaciil liibaan cilmi boldari oo runtii tusaale u ah marka laga hadlayo fanka soomaalida gaar ahaan heesaha iyo gabayada iyo waxyaabahaas gaar ahaan qaybta maaragtay cishqiga iyo jacaylka iyo magacii loo yaqaanaba waxyaabaha runtii inuu magaalo ku noolaa oo berbera arrintiisu ka bilaabatay dadka waxaa dib loogu celin karaa la odhan karaa de ninkaas markuu warkiisii ku laabtay dhulkii uu ka yimid aad baa loola yaabaa because of thaqaafadii iyo cilmigii yaalay dhulka uu ka yimid dee dhulka miyiga ah iyo warkan ninkan magaalada tegay kasoo yeedhay waa la isqabadsiin kara waay marka waxaan iyadoo barbar socon kartaa cilmi iyo dhammaan intii markaa ku hareereysanayd iyo maaragtay meeshuu ku barbaaray hadday magaalo ahaan lahayd oo dee magaalooyinka jacayla ka dhacay oo irticaan ah waxaa laga yaabaa wadciga uu la kulmay iyo sidaa wuxuu waajahay inay ka duwanaan lahayd si markaa waxay noqonaysaa un labada beeca iyo labada maaragtay waaqic inay aad u kala duwan yihiin marka taasaa keentay in badan in si ka duwan suugaantii miyiga lagu yaqaan markii magaalada la yimid in qaab kale iyo weji kale ay yeelato tusaale fiican waxa uu ah imika de waqtigan fanka reer magaalkeen ka hadlayno waa 40 Soomaalida marka waa 8 sano weeyaan de Cabdisinimo iyo baabuur kaga jabay gobolka Awdal ayaa de ma garanaysaa soo saaray tusaale ahaan bilwada oo kale marka waa hees hawleed cusub bay noqonaysaa oo tii ahaantii iyo lamid ah oo de baabuur banigi ka jabay oo halkan uu fadhiyaa deedna balwu isku maaweliyey halkii bay ka bilaabmay fanka Soomaalida ay casriga ama ka reer magaalka marka calaashan waxaad xataa arki kartaa in hees hawleedadii qayb kamid ah oon ay ahayd fankan casriga maanta organ kale inoogu tumay waaran waxaan waxa lagu sii dari karaa markaas ama la xasuusan karaa marka mawduuca laga hadlayo hees hawleedka ama ciyaaraha dhaqanka miyiga dadka yaqaanay markii ay arin maaragtay fahamkii ay ka qabeen ay la falgaleen heesihii iyo suugaantii magaalada lagu hayay waxay noqdeen wax aad u cajiib tusaale fanka waxa jira wax la yiraahdo de fanku warta waa art kana waxa qayb ka qaabkan xataa in wax u qorno oo waxa laga yaabaa labadeena hadii Ismaaciil Cabdi Ubax iyo Ismaaciil Cabdi Deen adna qortay anaan qoro inagoo mid kasta xuruftiisa iyo maaragtay kelmadu inta xaraf ka koobantay ay saxsan tahay haddana qaabkan u sawirana u qorana way kala duwan waa mowduuc kale oo isna xiisiisa leh oo marka laga hadlayo hebel ka gacan macaan muusikada marka laga hadlayo waa qaacida la adeegsado laakiin waxaan u tusaaleysanayaa dadka laxanka sameeya laxanku waa taaliifta qaybaha ugu cajiibsan xataa qofka ereyga sameynaya waxa ka cajiibsan qofka laxanka sameynaya ka codka ku qaadaya ku looqeynaya taya ahaan marka fanka la joogo laga hadlayo waxa ka runtii ka mudan qofka laxanka sameeya waayo qofka laxanka sameeya waxa looga baahan yahay waxa la wixii hees dunida jiray wax ka duwan la yimaado laakiin de imisa ereyban waan ku jecelahay maaragtay sida kaama mudnayn ama inayaho de suugaanta way ku jirtaa laakiin laxan wali ma jiro hadii laxan loo ekaysiyo lama oranayo ereyadu way ka duwan waxa la leeyahay heestan waa hees hore loo qaaday laxan kala dabir marka dadka ciyaaraha dhaqanka yaqaan waxaan tusaale soo qaadanaya marnaba la garan karin la oran karin waa farti hebel waxa kamid ah ninkii la oran jiray Cabdikariin Faarax Qaare Jiir Ilaahay u naxariisto Cabdikariin suugaan sidaad eegto ma garan kartid heestan inuu soo qaado laakiin si ka duwan abwaanada kale maxaa la yiraahdaa dadka hal xamiistayaasha kale oo waxa laga yaabaa inaad tiraahdo fartana waa farti Jim waa tii maxamed Ciga Ilbir waa tii Cabdi Xamdullaah Salaana saasuna wada Axmed Gacayti tiisina tiraahdo marka Cabdikariin waan la sheekaysto waxaan ku yiri maxay tahay laxanadan tirada badan leed samaysay haddana mid aan meel ka soo galahay waxay ku yiri ciyaaraha dhaqanka ku beeskarayaan ku saleeya kolkii hore markuu joogay Mudug iyo
iyo maaragtay xaradheer dhulkii ku noolaa ciyaaraha dhaqan ku ciyaari jiray marka wuxuu yiri weeraan 80 ciyaaro dhaqan oo kala duwan ayaan aqaan marka kuwii baan ku salayaan ciyaari dhaqanka kadibna laxan kasta uu ka duwan yahay kii hore taqaan marka sida caadiga ilaa haddana haddaad laxanada fiiriso sababta qaraamku u dhiman lahayd xawayaan qaraamku muddo badan buu waana noolaan doonaa inta qof Soomaali jiro uu noolaanaya waxa keenaya laxankiisa wuxuu ku salaysan yahay qaab dhaqankii dhagtu markaa waxay fahmaysaa in waxan yahay wax qofkan ka tarjumay heelooyinku markaa saasay macna markasta calanka ugu sidaan sanad kasta way la dhashaan heelooyinka iyo qaraam marka fankii cabdisinimo uu bilaabay balwooyinka ahaa markii dambena heelo loo bixiyay maaragtay dabkii halkaas maaragtay shamci ka dhashay waa kan kacdoonada abuuray ee runtii markii dambe noqday fankan ilaa maanta la xiisaynayo ee qofku sii dhiibay طبعا dad markii hore durbaaniintu ma jirnay cuudku goormina soo galay cuudka horta waxa la sheegaa ninkii la oran jiray Maxamed Saciid Faarax oo gurun jira loo yaqaan ayaa horta ahaa ninkii qofkii koowaad ka tumay radio Hargeysa kabanka ama cuudka markaa gurun jira asalkiisu isaga yawan buu ka soo jeeday yawan buu kala yimid isay noqonayso dhowr nin waxa jiray isna nin ay helaayeen oo la oran jiray Maxamed Xasan Nahaari oo laba nin oo Xasan Nahaari iyo Maxamed Nahaari marka waa Xasan isna kabanka uu tumi jiray Cabdi Xamdulla Shanle oo dadku yaqaan Cabdi Afweyne isna uu tumi jiray dadkii bilowgii u horeeyay radio Hargeysa 3 markii la asaasi sameynayay macnaha tumayay muusikada ka tumayay marka wuxuu ka yimid Yaman oo waliba deegaanadan Somaliland Yaman xiriir gaar ah ka dhaxeeyo Yamanta maaragtay koonfureed Ingiriis baa haystay marka halkan Ingiriis baa joogay marka xiriir isku maaragtay waan darisna waa leeyahay marka taas horta keentay in isku talawgaas u yimaado marka cuudku halkaas horta ka soo galay markii dambe Cabdilaahi Qarshe laftiisa Yaman ka yimid baa jiray taas markii dambe keentay in halkaas ka sii dab qaato oo sii socoto waxa jiray markan waxa la aasaasay balwo kooxdii balwo markii la aasaasay magaalooyinka Walageeri kacdoon baa ku bilaabmay ereyga balwo laftiisaba ayaa dadkii magaalada joogay ama wadaadadii ay si kala warkeen waa la eriyay jijiga sidoo kale waxba asaasa ku dhacday Hargeysa markii dambe Djibouti bay ay ku xasaleen marka kooxdii labaad ee balwo halkan ka samaysantay markii dambe يعني markaad eegto fanku sida loola daala dhacay markaas ilaa iyo maanta sanadkan joogno wali wuxuu baa jira cadaadisyo kale oo wali waan sidii hore ahayn haddana mar walba ka hor imanaya ma isbedelay fikirka dadku ka haystaan ama fahanka ay dadku qabaan fanka Soomaalida wuu isbedelay horta culayskan waxa keenay wax ku cusub ay hortahay oo bulshada Soomaalida laftooda in ilbaxnimadan ma inaan lahayn fan waan lahayn waynu gabi jirnay waynu dhaanteen jirnay oo ciyaaraha iyo waxyaabahaas way jireen ciyaar dhaqameedka laakiin fankan in fankii aalad lagu tumo oo aalad lagu laro wax inagu cusubay taasa keentay ta kale meesha idin ku jirta taariikhdu xusayso waxa weeyaan Ingiriiska laftiisi fursad buu ka dhaxarkay halkaas waayo wixii hadii laxan loo sameeyo laxanku waa wax fudud oo adiga iyo aniga iyo qofka kalena amidna aanu ka daalahayn dhagtuna jeclaysanas hadalkii qalala oo la qorxiyay loo yeelay dariiqo loogu dhawaaqi karo loo sameeyay qaab qofku ku soo celishan karo markii Cabdisinimo Cabdideeqsi Warfaa oo alifay laxanka balwo arintii waxay u fududaatay dadkii kale ee gobonimo doonka suugaanleydana
oo maaragtay Yuusuf Xajaadan ka mid ahaa ha kala horeeyaan taariikhu iyaguna ereyay ku darsadeen laxanadii la sameeyey marka ninkii suuqa iska joogay laga yaabo inuu iska xamaalanay yaa ereyo maanta dhan uu ku soo celcelin karo sii gudbin karo isna uu maarad ku raaxaysan karo ayuu isticmaalay ereyada marka laxankii waxa ka faa'iideysanaya waxa lagu laadhay ereyo gumaysidiid ah ingiriis markuu taa arkay wuxuu bilaabay inuu meesha maaragtay sida uu waajihi lahaa arrintan markaasuu bilaabaya culimadii diinta iyo dadkii maaragtay odayaasha inuu dhinacooda kasoo wareega uu leeyahay arrintan khatar bay ku tahay horta halkaasaa keentay in kooxihii lagu kaco kooxaha laftoodana dee qof maaragtay la takooray oo la eriyey ayay noqdeen iyaga laftoodu markii dambe iyaga laftooda doodaha laga helay baa jirto qaar oo dee markay dadka maaragtay gooni u baxaan qaarkood laga yaaba inay balwad iska yeeshaan kadibna tiina laakiin wax kasta waxa loo aaneyn karaa uun dooda ingiriisku ka dambeeyey dee odayaashana u adeegsatay inay qayb ka tahay hadda laakiin fahamkii dee wuu isbedelay oo dee wixii qaab cilmiya looga fikiro oo dee haddana aynu ka sheekaysanayno aniga adigu in wixii schooling systemka iyo la geliyo waxbarashada oo dee waxbarashadeenna waxa ku jirta heesaa ku jira gabayaa ku jira maansooyin baa ku jira waasa way jirtaa in goobo guud la isku yimaado in wixiiba loo arka maaragtay dee maaragtay dhaxal umadeed oo bulshadu leedahay waxa ugu muhiimsan leedahay ayay runtii waxay dee dhashay in afkeenii iyo taariikhdeenii iyo dee buugan hadda hayso ka mid yahay iyo boqolaalka kale ee kala duwaneed af Soomaaliga ku qoran suugaanta laga qoray waxaasoo dhan marka horta isbedel weyn baa jira laakiin weli cilmiyeyn badan baa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay qofka hibada leh in bini'aadamku wuxuu ku heshiiyey hibo kasta lahu laakiin manhaj baa lagu heshiiyey qaab waxbarasho in la maro cilmigaas macna dadku ay ku heshiiyeen marka qaababkaas wax lagu baranayo ama syllabuskaas in fankeenana qayb laga dhigo fursad laga siiyo waa mid meesha ku jirta loo baahan yahay markaas waxay noqonaysaa in si cilmiyeysan weli waxa jirta dhinac bay kafadu ka badan tahay waxay ka badan tahay dadkii hibooleyda weli waxood ma difaacan karaan waxa laga yaabaa qof isagoo aragti kale iska wata dan gaara marka qaar kale inuu si fudud u nacsiiyo qofkii hibadiisii iyo dhaqankiisii iyo fankiisii iyo wixii uu tahay marka ilaa dee qofkaas la gaarsiiyo heer uu cilmi ahaan u sharixi karo waxaan uu hibadana u wado iyo muhiimadda u leedahay waxay la tahay waxbaa dhiman laakiin dee sidii hore lama aha haddana wax markaad eegto sida loo eryanayay kooxahaas iyo haddana in tiyaatarradii iyo riwaayadihii mar kaliya la bilaabo oo tallaabo aad u weyn marka laga tago dawladdii markaa jirtay oo xoogga saaraysay sidee bay u fududaatay in mar kaliya wacyiga bulshada muddo aan badnayn 20 sano meelahaas in lagu bedelo in horta qofka bini'aadanka waxa la primitive fajro fitra iska abuuran in qofka bini'aadanka fitrada ku abuuran waxa weeyaan sida uu cunno iyo cabitaan iyo ugu baahan yahay hawaba iyo si leeg buu ugu baahan yahay fan iyo entertainment iyo madadaalo ama inuu wax isna wax loo sheego isna wax sheegi karo markii idaacadaha la sameeyey gaar ahaan radio Hargeysa oo waxaan dayada lafta wax cusub ku ahay dadka waxaa bilaabmay dadku fariimihii ay ka helayeen inay ka xooganaadaan wacyigelintii kale iyo suugaantii kale gabayada kale waayo heestii qalab muusik ba la socda muusikadu dee wax kale weyn ma aha absolutely laakiin waa uun laxankii oo dee la raacay oo qof farshaxana aalad uu ku laray wax kasta noqon karta wax gaar oo qeexan la yiraahdo waxa muusik ma jirto laakiin wax qeexan farshaxanku inuu wax kasta ka soo saari karo qurux inuu ka soo saari karo marka taasa dhalatay ta kale aadka lagu baahay qab wax way dadku Soomaalidu meel ay joogaan dabayl baa jirtay oo gobonimo doon ah riwaayada la sameeyay Ali Sugulle iyo maaragtay Xuseen Faarax isaga inda sarcaadi oo ku riwaayadaha sameeyeen saxadid jabiyay laguma dhaamay dhaqaaq oo ka sameeyay marka taasa horta keentay in dadku baahida ay u qabeen oo ahaa inay xornimo helaan
oo meel kasta dabayl baa ka socotay taasaa horta qayb keentay tan kalena dee markii Soomaalida dowladda u dhalatay tan kale marka sigistigii oo kale sigistigii khudbad kasta oo la jeediyay iyo hadal kasta oo la sheegay xornimada markii la qaadanay waxa ka saameyn badan aan maal lahashayna maandeeqi internetka marka markii horta waxa la arkay dee doorka nolosha kaga jirto suugaantan iyo fankan iyo dee sidii qofka uga tarjumayso waxa la yaab leh in Ingiriisku markan uu xakan ka soo wareegay odayaasha ee uu ku dirayo fankan gobonimo doonka haddana in isagii laftiisii markan loo adeegsanayo la leeyahay madaxeen banaan maanta madaxeen banaan maanta xaqiiqo in walaalaha Hargeysa kaalin noocyo ay kaga jireen fanka walaalaha Hargeysa waxay ahaayeen ba udub dhaxaadkii fankan hadda aynu hayno waayo waa meeshii u horeysay ee koox abaabulan oo asal leh culays kasta la kulanto oo meel ay wax ka sheegaan haysto radio Hargeysa ay helay marka dee waxay kaga jireen door weyn fankan qaraamkee hadda aynu hayno dadkii alifay way muusikadan gaar ahaan kabanka oo dee noqonaya boqorka fanka marka aalaadka muusikada laga hadlayo dadka baray weeyaan waa jiilashii dee usoo dhiibay jiilasha kale heesahan badan ee qaraamka marka laga yimaado dee hadda aynu dhageysano oo aynu ka soo qaadan karnaa ubax lamoodiyo heestan aadka cajiibka ah Axmed Maxamed Good Shimbir oo la xameeyay saxardid jabiina oo alifay marka dee waxay hayd uba codii xaqiiqatan fankan hadda aynu hayno isagun baa dee markii dambe kooxihii kale ee waabari u weyneedna ay kasii dhasheen xoogii dalka oo maaragtay Cismaan Askari iyo Maxamed Cali Kaari iyo dadkaasina ay kasii dhasheen isan gubiyo markii dambe dee kooxihii kale horseed isagun bay kasii dhasheen ilaa dee mar dambe oo maaragtay fanka Soomaalidu kor u kacay dadka maaragtay la cuskanayay ee marjaca ah dee walaalaha Hargeysa bay hayeen rag iyo dumar Cabdilaahi Qarshe Allah naxariista waxa lagu yeeraa inuu ahaa aabihii fanka Soomaalida haddana markii uu Hargeysa yimaanay Yaman wuxuu kala yimid Cuud isagoo si toban tumay aqoon talaabadaas sidee uu qaaday waa runtii su'aal xiiso leh Cabdilaahi Maxamed Qarshe waxaan u malaynayaa dee markii halkan uu yimidna fan baa jiray xaqiiq oo dee rag baa sii joogay oo waday markii dee isagu yimidna wixii ugu weynaa ku caan baxay oo dee kabanka iyo laxanka wax badan muu wadin oo dee markaas uu xiiseynayay waxaan ka sheekeynayay markii Yaman uu joogay idaacadii markaa ku taalay halkaas Ingiriiska uu maamulayay dalalkii kala duwanaa Ingiriisku haystay mid kasta fursad baa la siin jiray ay maaragtay suugaanta ku soo bandhigaan laakiin qaybta Soomaaliya markay tahay Hindi baa la gelin jiray marmar baa la soo deyn jiray gabayo uu leeyahay xajaadan afqalla marka Cabdilaahi Qarshe waxaan u maleynayaa dadaalkiisi inba ku mutaystay iyo waqtigii uu galiyay markiiba wuxuu bilaabay laxan aad u tiro badan oo macaan oo aynu ka xusi karno laxanka weligii dhimanay la yiraahdo nugul oo carwo ku jiri karto beer dilaash ku jiro maaragtay laxanadaas marka yadee kuwii kala duwanay riwaayadaha Cali Sugulle uu alifayay ama uu alifayay xadiis maxaa ninka ii sheegay Xuseen Faarax Dubad isaga laxanada u saaray marka Qarshe amaan kasta oo iyo taariikh kasta oo yeesho dadaal baa runtii udub dhaxaad oo ahaa marka loo eego saas waayo dee rag baana ka sii weynaayo sii joogay haddana saameyntaas ay ku yeeshay ilaa mar dambe oo dee Qarshe uu waday fanka waa uu waday dadaalka waa waday waxaana isaga kaga duwan inta badan wuxuu ahaa nin markasta inuu koox abaabulo oo qaab jimaaci wax loo qabto heesihiisa oo dhan dad baa la jiibin jiray dad ba macnaha la waday laxanadiisu inta badan waxa ay laxan kooxeediyo marka dadka gacan qaban jiray abaalka uu inuu sameeyay waxa ahayd laxanada qaraamka waayo qaraamku runtii waa fanka Soomaalida waxaan yiraahdaa marka qaar haddii xataa fanka la soo bixinba qaraamku Soomaalida ku filan ku filan waxa la sheegay in 40 yihiin haddana ka badnayn laxanada qaraamku way ka badan yihiin waayo intan anigu ma maqla maartay
iyaba 50 ka badan waxaan qiyaasayaa tiro badan ma maqan marka dadka qaar 9 bay gaarsiiyeen laakiin inta aan baxday baa runtii kooban waxaana keenaya fanka Soomaalida baylaha badan baa iskaga dhacay oo inta la duubay waxa ka badan inta aan cidimahayn marka qaar waxa dad badan sheekaysanaysaa qof ajarada ka sii qaatay ama qof hore ku sii hadiyay iyada arkaysa hees aan idaacadna oolin meel kalena oolino ku jirta oo aad u tayo badan oo laga yaabo koox meel isku timid intii wada alifteen kadibna halkii laga gatay marka baylaha badanna waa la kulmay laakiin hadda saasay tahay fanka qaraamku runtii dhaxal fiican oo runtii codad fiican waa la duub marmar waxa dhacda codadka laftooda magacoodii qaraamka inta badan magac baa la siiyaa sida ka duwan heesaha oo laxanka riftan baa leeyahay laxankii waxa leeyahay beerd al-cashe xaafun carwo isku shuban ereyaduna way aragto waa loo kala duwayaa laakiin qaar baa jira godadka aan laakiin haddana laxanka waxa la siiyaa magaca marka haddii laxamadaas oo kaliya aynu haysano way naga badan yihiin waayo dee halka laxam baad ka samayn kartaa milyan heeso waa ereyadu mad kelinaysa in dhanka jacaylka haddaan usoo beydhno waa mawduucan jeclahay adiga laftaaduna waad jeceshahay waxaa jira maxamed cali kaariye iyo jacaylkii uu qaaday la yaabka lahaa Shankaroon Axmed Sagal midhih ay ka dhashay silsilad waxay haayeen dheer oo heeso kala duwana buugana way ku xusan yihiin maxaad ka taaban kartaa horta marka laga soo bilaabo toddobaadimeyadii ilaa iyo mar dambe ilaa hadda aynu joogno sheekooyinkii fanka Soomaalida la iskugu tabinayay qofku jeclaa ama inuu wax ka ogaado ama intii ka ogeeyay ay ku raaxaysanaysa waxa kamid ahaa qisada jacayl ninkii la oran jiray Maxamed Cali Kaariye mar dambe waxaan maqlay magacu oo ehelkiisu ii sheegay inuu Maxamed Cali Axmed isaga iyo Shankaroon Axmed Yuusuf oo Sagal la yiraahdo sheekadaasi waa sheeko runtii aad u xiiso badan Soomaalida si guud taariikhdeena waxyaabaha lumiyo waxa kamid ah qofku xogaa kuma dhiirado inuu noloshiisa ka warramo ama qof kale noloshiisa inuu ka warramo si waxaad u moodaa in maxaa siraya maxaa sirahayn Soomaalida si guud heshiis uga moodaa jacayl hadday noqotana ka daran way ka darantay waxaana keenaysa marka loo fiiriyo waxa la keenaysa waxaan u malaynayaa arrimahan magaalowga iyo dadka maaragtay xiriirada dhexmara ayaa malaa sidaynu cabirno u baahnayd mar hore in dib loogu laabto waayo sheekooyin badan oo xiiso badan oo aynu xiisayn lahayn oo haddii luuqada lagu turjumana dunida lafteeda macna u samayn lahayn ayaa waxa looga gaabsadaa waa sir iyaan la faragelin taasaa horta keentay wax badan not only arrintana kaliya maaha laakiin dee 100 sheeko oo kale oo waxa jira fanka ku jira oo kuwii xataa alifay laftoodu ay ka gaabsanayaan inay sheegaan marka sheekadan ku saabsan Maxamed Cali Kaariye iyada inta badan waxay kaga caansanay heesa la arkayay oo dee ama fanaan kala qaaday ama Shankaroon lafteeda loo dhiibay ama Maxamed Cali laftiisa uu cid uga sheekeynay laakiin tabinta sheekada la soo tabiyay markasta way ka yar tahay intii ay ahayd waayo ereyada ku jira waxay ku sheegayaan dareenka sidoo xoogana dad Hargeysa soo maray kala markaad eegto ma hayo mana sugayo kala markaad eegto dhoof caashiq markaad eegto hurdo kama bogto markaad eegto waxaad ogaanaysaa bil waliba bishii kale igu sii ballamaysi tii Mozambique hurdo kama bogto khadiija fadi qaadis marka waxaad dareemaysaa tii xasan aadanayo dhoof caashiq Allah iyo dhib badan adoo dhoof caashiq lol shisheeye ka hal marka waxaad dareemaysaa horta in arrintu aad u xoognayd laakiin de Maxamed Cali warqadna laga meel ku qoran lama arag lama waraysan haddii la weydiiyay inuu ka gaabsaday in kala war lagama hayo waxa la hayaa waa suugaantaas iyo de markaad la sheekaysto anuu Shankaroon kale la sheekaysto
waan ismaqlay waqti dheer aan sheekaysanay sheekada si guud waan u hayay laakiin waxaan iyada ka saxanayoon rabay taariikhaha heesahan la qaaday iyo marka masaa'il guud oo arrin mawduuca xidhiidh la leh laakiin dee dad kale oo ehel ahna waan waraystay nin dhalinyaro oo isaga laftiisa buugga qoraya oo suldaan la yidhaahdo salaamaya isna waqti badan buu geliyey isaga laftiisii waan lasii sheekaystay heesahan dadkii la xameeyey oo ka mid ahaa ninka la yidhahdo cabdikarim jiir waan waraystay khadiijo fooda iyo heesta qaada waan waraystay cigaal laftiisa mar baan is aragnay oo wax ka weydiiyey aadan tarabi jaamaca laftiisa waan sheekaystay waan waraystay marka horta qisadaasi qisa waxay ahayd runtii markii dambe way isguursadeen Shankaroon iyo Kaari laakiin de Kaari sida suugaantiisa ku jirta xaalad adag ayuu maray oo jacayl heestii ugu horeysay inta la isku waafaqsan yahay oo Kaari iyo Shankaroon isbarta waxay ahayd heesta gooriya ayaana iyadu qaato aadan tarabi iyadu mar waxay igu sheegtay ninkii la odhan jiray nin kooxdii onkad ka tirsanaa oo ayay igu sheegtay mar laakiin baaritaan kadib aadan baan ogaaday inuu leeyahay Muuse Cali Wajiwe ninka igu sheegtay Muuse Wajiyarna dadku odhan jireen laakiin baaritaan kadib waxaan ogaaday aadan inuu leeyahay aadan laftiisa waan weydiiyey iyada lafteeda riwaayaday ku jirtay uun markaa aadan bay iyo heesta leh sidan markii dambe aan xaqiijiyey ama dee u badan tahay marka qisooyin cajiiba oo aan runtii qarsoonayn ba iyaa ka dhexeeyey marka cajalad buu maqlay isaga iyo cajalad buu maqlay haa codkeeda heesiisa haa boorama la joogay markaas marka khadiijo fooda waxay igu tiri waxaan wadnay riwaayadii la odhan jiray wadiya wacd cismaan askari lahaa marka askarta ay ka tirsanaayeen maxaa cali kaari laftiisa waa bari markaa wali lama samayn kadibna sidii buu ku yiri gabadhan yaan de halay baro de markastoo caqabadi jirtana xiisuhu wuu sii badan yahay oo de markii maaragtay gabadhan teleefankeedii lama helayo teleefon ma haysta midooy si fudud maaragtay in loo gaadha way adag tahay social media malaha social media ma jiro in la cabiro lafteeda oo ereyga la sheegay lafteeda maaragtay wax la qarinayo maaragtay dacwo sirri ah marka wax badan waxa uu hiiliyay isaga de suugaantii iyo wuxuu ahaa nin de agaasimaha wax soo saarkana uu ahaa kan Hargeysa madaxda mareeya ka noqday de nin fanaaniintiina maamula oo maamulkii ah dareen kasta uu leeyahayna u dhiibayo oo hebel iyo hebel ay heestan qaada ayuu ahaa dadka kala sheekaystay waxa kamid ah Ibanora oo lafteeda hees qaata filaa fikir nafteeda ahayd ay la qaada ayaa jirta ku saabsan qista Xasan Grade baan la sheekaysana oo isaga laftiisa heestan ma hayo mana sugayo imana maqnaan oo Soomaalida dadka qaar fasiraad qaldan ay siiyaan oo yiraahdaan tartan dhex maray Xasan Aadan iyo labada ilmo moogi Maxamed iyo Axmed iyo laakiin sheekadu ay ku saabsanayd waxa la yiraahdaa Shankaroon cabdikarim jiir oo heestan dhoof cashaq isagoo la xameeyay baan la sheekaystay marka Shankaroon horta saasay sheekadeedu ahayd Shankaroon Axmed Yuusuf marka loo eegana nin uu safray isaga laftiisu waayo de waa laga guursaday kadibna wuu sugay haddana marka dareenkiina wuu sugay Sacuudigu buu baxday sikadiisa markii la sikadiisa ugu baxday oo kan heestan dhoof cashaq waxa la yiraahdaa sameynaya ma hayo mana sugayo marka de mujaahid jacayl baa marka soo dhakhtarka jacaylka lagu naanaysi jiray dhakhtarka jacayl magacaas labsi runtii xog badan baa buugan ku qoran waxaan ka hadlaynaa dhan buugii ku yaalaan iyagoo faahfaahsan laakiin muusiga Soomaaliga iyo sida uu soo korayay yani marka laga tago inuu durbaanaynu ka bilownay oo deen durbaanun haysanay salahan codkiina oo yimid markii dambe fooridii iyo dhaxyartii iyo lagu laray imikana wixii dhameystiran organ inta loo bixiyay qof keligii intuu meel fadhiyo oo tuman karayo wixii codadkii oo dhan meel isugu yimid waa fududayn dhan kalena dhaliilo badan bay leedahay ma horu socdaa mise dib fanka dhanka muusiga waa aragti aniga aragtideedu waxay tahay
inuu dib u socdo waxaana keenaya energy lagu bixin jiray iyo uheelanaantii iyo maaragtay ayaa meesha horta ka baxay. dadku fanki waa u baahan yihiin laakiin sida maaragtay berigii horeba waxaa laga yaabaa number ka kooban ilaa 13 digit ama god qofku in xifdi jiray. laakiin hadda asxaabteena waxaa laga yaabaa number 2-3 qof baa numberada naqaanaa inta kale telefoonka inoogu jiraan. marka access kaasi fursadda la helay dhinaca kale waxba lumiye in laga maarmo koox dhan orchestra la yiraahdo oo hal qof wixii ay ku soo koobnaadaan waxay keenaysaa aalaadkan mid kasta gaarkiis iyo macna u sameynay si kale dadkan dhamaan qof kasta creativity-giisa iyo abuurnimadiisu ku diray. marka maskaxiiba maqan laba maskaxood waxay ka fiiceen hal maskax haddii sii bataana dee tayada sii badanaysa. marka waxa tusaale nool oo ah arrinta muujin kara heesaha in dhageysano kaba soo qaad heesta la yiraahdo riyadii xalay oo koox tumas. tusaale kale baddu inay midowdahay koox tumas dhirta xididka hoose oo ay tumayaan maxaa la yiraahdaa Xuseen Baajooni iyo Jim Sheekh Muumin. waa dareemi kartaa macnaha gooba uu tumayo bonga waa dareemi kartaa macnaha testiga iyo dhanka leedahay. marka aniga waxay la tahay hadda fursadu way badan tahay oo lagu heli karo qalab qof kasta uu ku gaari karo. dunidana wuu jiraa wali oo caalam العربي wali orchestrahoodii kabankiina way sii qurxiyeen violinti way sii qurxiyeen fiis harmonihi kala baxay way sii qurxiyeen flute-ki la afuufay way sii qurxiyeen saxophone-ki tenorki wax oo dhan way sii qurxiyeen laakiin kama saarin meesha. innagana markaas baahidaas ayaa la qabaa wali inagoo fankeenu meel fiican marayo ayaa dagaal dhacay dawladda Soomaaliya burburtay يعني ده وسيلة واحد كستو كلا وبربران أيوة ده طبعا فانكي موسيقى نو بربران مركها هرتو ده تبي نقاشة لفتي قيبة كانوا برتاس قيبة كانوا برتاس إن مركها إكتو إن موسيقى مركها لقتها فانك لفتي سهسي عادي إن ده مدة ده تقال دي واحدة عين ده وي أدركتها إن موسيقى لا تنتو هذه قد كفكرة يا نرشة أساسا ها ينا ده نبض يعوى مكوسة توست هذه قد نول كفكرة يا ده موسيقى ما حسني سيد مركاي ما كنت نبض اللي هلاي تنبه صومالي قيبه ذاك التوم ولي بقى ده هسي هو يبدي بلعب من وحا مركا عجيل سديه وكلا يدنا فكرة دي برجي بالود الويريني وكلا إن ده دورة مثلا كهر يمكن ده سنة دي ودم بيه وكلا إني ده وسوا خفيفين لكن يجون ولي ماشي يسوي حوجيستين مركا ده ما أنت هرجيسو كلا تنتصالو سو قادنا هدول ده لقى أنت يوردن ده هذاني ده ما أنتو ده هيني تو بدن مدول بدو موسيقى لايف على تسمع ويسيا لقى تسمع ده واحد شرمه هين تمسنا كهر مركا علشان ده يسجل في سو كريه ودي بالله صنعنا أو مقرنسا لكن ده بجهاد نقاطي أي سويدين لده سيد لو قبلها اللي هو هجين لها وده صح ده تكلم وحي كانت تعرف تيجي بربر كاية تقالها صح كأنه إن الموسيقى لفتيس وكوحيسي وبدو بلعمه سيدي بالوده برجع بعد لهيد قلاته ولا جرح لين غير كود وده كنتي كوح نقدم بميلا مدو كلام تنا ده سجار سكون نقدم وبالوده بلعبه سيدي يو كلا ده هالكن مركها دائما ونيتشرين مركها إن ميل لو شغلته الانتياتر بلو شغلته يا وسوق الشو سوي حب شغلته وسوي هيسي ده نفس كراوحي رواية بوديجي يوم كرنا سهبين كان ما دام إنه يحيي شرين وحنا قلت مركا إن ده كوحة بلعبه مركا ما أنت هتدرس هذا هس سيئون وقيب قاعدة creativity له كسي عقبات بجرت ده مقلي كرتيد ميلها قارك عقبات بجرت عقبات بجرت مركا ده إن هرت تحالف تدي لك صو صار أو إني واحد جرت اسمع له ورت الموضوع عزي ethics كوهوس منايا سيدا كستنا قد يدك نداونا يو إنه يو ده دك علومتك كلا برتي mid kasta waxaa jira ethics bal raacay macna media ethics medical ethics wax kasta anshax baa macna la socda anshaxaas waxa weeyaan waa tan samee iyo tan ha sameyn shaqada sidana habboon sidana ma habboon
ma ogtahay dadka u shaqeynaysaa ugu adeeg saana ugu adeeg marka ethicsku wuxuu kama maarmo managementiga yaa maamulaya waxaas waxaan filayaa ereyga nintoocsi in loo adeegsan karo oo dee qof kastaba iskiin isku dirayo oo iskii u ordaayo marka fankan socday muddadan dambe waa fan iskoris ah qofka iskoriska ahi dee waa geed keligii cidla ka baxay marka waalidkii toosin lahaa ma laha horta marka jiha kasta iyuu kala bixi karaa geedka dul laga baxo jidku xidhi karaa guri kale moogtahay ku bixi karaa laamaha qaar baa iyaga isjabiya laakiin dil toosin lahaa markuu yar yaho maaragtay si quman buu u bixi lahaa dadkuna ka intifaacsadaan isna khatarta dee wuu iska badbaadin lahaa marka waxaana keenaya runtii dadku fan waa u baahan yihiin waa run laakiin fanka loo baahan yahay lafsadood baa la gelin karaa xaqiiq waxaa loo baahan yahay fan ka hadlaya qiyamka qofka ka tarjumaya Soomaalidu noomisi waxay leedahay waxyaabo ay ka duusho waxyaabaha fan ka tarjumaya oo loo baahan yahay marka arrimahaas horta u baahan dood in la geliyo runtii dooda inta aan laga jawaabinna weerarada kale fanka lagu wado iyo kuwa lagu soo qaado marar badan dadka fanka lagu jabinaya waxaan lagu jabinayaa inay ku lahaa qof aan xoolihiisa difaacan kara dee waxa weeyaan maalin kasta moogta 2-3 waraabo ka qaadanaya waa wax shuwa moogta marka waa taas way jirtaa laakiin waxa barbar socda dadka inta fanka fahamsan oo iyaga laftooda aad u kobcay oo meesha maaragtay ku jira iyaguna meesha ku jirta marka waxay ila tahay si kooban mas'uuliyadda saaran waana u sheegaa xaqiiqatan dadka ama kooxaha maamul ka ah gudoomiyaasha amaba xarumaha wasaaradaha hoos tagaan in mas'uuliyad ay ka saaran tahay fanka Soomaalida mas'uuliyad ay ka saaran tahay wixii wanaagsan ay hore loo sameeyay in dib loo celin weeraan sawirka fanka laga haysto iyo yaamde ama muuqdaba wanaajintiisa mas'uuliyadkaas badan inuu saaran yahay runtii waan la wadaagaa runtii dadkan sheeko wadaagan fanka si uun tala ahaan maamulka maya in wixii la system inta la geliyo oo noqdo xataa mid iskuulada lagu dhigto waa mid muhiim ah marka ummadda ay yeelanaysa cid gaar ah ma yeelanaysa waana adkaanaysa in lagu bahla geliyo markaas oo kale waxaagi haddayna eegno bulshada Soomaalida inta badan meel barag baa taagan siyaasad noqoto hadday garanaysa inaga lafteedinu inta badan rag baynu ka hadlaynaa caawadan fanki laakiin fanku wuxuu ku jiraa runtii meelaha ugu dheeli tiran labiyo dhadiga marka la eego hablihii fanka bilowgii maxaad ka taaban kartaa iyaga waxaan ka taaban karnaa horta waxaa jiray dad iyagu maaragtay la diiwaan geliyey waxaan ka wadaa idaacadaha ka heesay oo ay ugu horeysay maaragtay Shamis Abuukar Ismaaciil gudida Carwo oo radio Hargeysa ka heestay iyo dhulkii maaragtay Talyaanigu haystay Muqdisho magaalada madaxda ahayd oo radio Muqdisho ay ka heestay iyadana Khadiija Cabdullaahi Dalays Khadiija Cabdullaahi Axmed Dalays labadaas horta ugu horeeyay haween kale oo waxa jiray iyaguna heesay oo iyaga la xusi karo xaafoon gabadh loo oran jiray kamid ahayd nasiib darro xaafoon magaceedu saddexan marar badan ma raadiyay dadkii xataa la kulmay ee arkay waan weydiiyay imay sheegin la hadda laakiin way ii sifeeyeen waxa gabadh jimir yar oo iyo Soomaalidu maartay dadka barta yar loo yaqaanaan ayay ahayd bay dhowr qof igu yiraahdeen mar yaban meelahaas ay tagtay hadana halkan ay timintay markii dambe Muqdisho ay tagtay waxaan filayaa Muqdisho ku dhimatay waxaa jirtay idana gabadh loo oran jiray Nooleeya iftiin baa jirtay marka dumarkaas markii aan raadiyay dumar kale jiro Shukri Barabara gabadh loo oran jiray markii aan raadiyay waxaan ogaaday inay ahaayeen maartay meelaha stage-yada iyo meelaha la isku yimaado inay ka heesi jireen markii dambe tageen idaacadda laakiin idaacadda waxa ugu horeysay gabadh laga maqlo
Shamis Abakar oo dhawaan geeriyootay Ilaahay naxariistay markii waxa ku xigtay gabadh la oran jiray oo baxsan wad garanaysaa Zainab Xaaji Cali Baxsan Siigaale oo iyadoo reer Ethiopia ka heestay buug way ku jirtaa sawiradeedii iyo taariikhdeediba Baxsan waa la kulmay waan la sheekaystay waraysna waan ka qaaday markii xagan timid reederkiisa ay timidna waa markii dambe xooga dalka ku biirtay iyaduna waxaa jirtay gabadh la oran jiray Xarada Ismaaciil Duniye oo iyaduna dhawaan Ingiriis ku dhimatay Ilaahay naxariisto ayaa iyaduna ahayd qofkii labaad reederkiisa Radio Muqdisho ka heesa ee ku xigay gabadha la yiraahdo Dalays marka hadda dumarku doorkaas ay lahaayeen 60kii bay u badnaayeen laakiin wixii 60kii dumar badan waa soo galay oo imaantay 60kii soo gashay ama bilowday fanka ay ugu horeysay kacdoon kala jiraysa 60kii dad badan ay ahaayeen Amina Feer Xuseen oo dadka ugu codka fiican leh waa gabadhii Warsan iyo Weersan isoo ay qaadasay marka hadda dumarku doorkooda saas oo ahaa intii hore laakiin door muuqda uu yaraa oo markii Dalays ka heestay halkan kale way ka tagtay Dalays ayaa oranay Khadiij Shamis Ethiopia tagtay wali wax loo kixiyay si ay xaq uga soo heestay lafteeda marka door muuqday runtii lahaay adiga laftaadu maanta dhan fan binka halay Umaro waxa jirta fanka aad u xiisaysa dabcan way cadahay taasi ma haystid laakiin cuudka waa tuntahay marka maxaa kugu dhaliyay kalgacaylka fanka wallahi horta su'aashaas Umar ma jawaab sax inoo hayo laakiin waxaan jawaab sax u hayaa energy-ga badan maxaad u gelisay kale ma tamarta badan waayo anigu hortmii baan ku dhashay degmada Hargeysa ayaan ku dhashay laakiin ka baxsan magaalada waxaan xasuustaa ilaa intaan garaadsaday gurigayga waxa soo agmari jiray la jidba soo agmari jiray marka baabuurta dhulka kale ee miyiga sii socota ayaa soo mari jiray meesha marka gaari guuxiisa maqlo oo ku soo dhawaan jiray jidka si aan u maqlo heesta ka baxaysa waxaan xasuustaa heestii koowaadeen caadi u dhageystay waxay ahayd Indha Deerale waan meel aabahay baan Ilaahay naxariistay aan raacayo tuulan tagnay marka meeshii markaan ka qadaynay ayaa laba gabdhood oo maqaaxi meesha ku haystay ayaa heesta Indha Deerale oo Xuseen Yustarabi oo qaadayo markaa ma aqoon Xuseen laakiin mar dambe aan ogaaday heesta inuu huriya alifay Xuseen Yustarabi leeyahay laxankana Rashiid bula saaray mar dambe aan fahmay oo ogaaday taas horta maqalkii koowaadaan maqlataas ahayd waan xiiseeyay si lamid ah sida caadiga ilmuhuba marka 3 jir 4 jir yihiin juni iyo maaragtay iyo way daawadaan waana xiiseeyay runtii oo markan kullaahi waa fitra insaaniya oo abuur weeyaan Ilaahay ku abuuray dadka markii dambe magaalada ay miday waxaan bilaabay inaan raadiye xaafad lahayd oo raadiye halka inoo saaran oo eeg inaan dhageysto oo anigu wax kasto rabo kuma dhageysan karahaynin oo fursad ma haysanin oo battery ku jira lacagaho cajalada adigu ma lihido laakiin marka la dhageysanayo waanan runtii aad baan u xiisin jiray markii dambe waxaan duubtay albankii la oran jiray ayaamaha jacaylka Mandeeq ayaan duubtay oo hayd markii waadaan waa fursad u heli karaayay intan studio tagan rabitaankay lacagna la bixi karo rabitaankaygana ma aragtaan dooqayga soo dooran karo laakiin markasta waxay ugu taagnayd inaan in ka badan inta aan haysto oo fanka ogaal ahaan iyo xiisa ahaan baynan sii dhex galo markii dambe jaamacadda waxaan bartay mass communication dhowr wax kala duwan baan xogaa diyaariyay laakiin wixii ugu horeeyay waxa mass media warbaahintan kadibna la shaqeeyay waxaan isku helay marka dhowr wax qofka wariyaha fursad buu haystaa inuu qof wax weydiin karo qofka kale xogta uu isaga ku aamini karo soo istaagi karo marka wax weydiintii laftiisii dee isugu garanaya qofkii oo qofkan halkeed wax ka bilaabaysaa iyo maxaa muhiim iyo
ma garanaysa su-aashaad maxay tahay iyo qaabka su-aasha u dhigasay waxaasoo maaragtay interview techniqueskaas qofku way uu fahmaya markii dambe dee warbaahinta galayna waxaan helay fursad platformkan ka sheegi lahaa wixii ciddii aan wareysan lahaa qofkii oo laftiisii dee isoo istaagaya fursadaha badan marka dambe isku beego waxaan odhan karaaba mass media inaan barto waxa qayb ay ka ahayd inaan fursad u helo inaan majaalkan ama qidaaca fanka aan wax fiican ka samayn karo oo runtii aan ugu yaraan macluumaad ku filan oo kaafi ah oo hadda buuggaas iyo laba buug kale ku xiga ay kamid yihiin cumar Serbiya Cumar Cali Xasan aad iyo aad baad wada mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa buugga fan iyo fanaan dhawaan baad magaalooyinka Soomaaliya dhan insha Allah aad ku soo bandhigi doontaa xogahan in ka hadlayno oo faahfaahsanna way ku jiraan kuwa badan maan doonaynaa hoos ugu dhaadhaco way inuu qofku buugga uu doonto insha Allah marka waxaad ka heli doontaan insha Allah bookshop agtaada ah dhawaan hadii ay beedmo Cumar Cali Xasan aad iyo aad baad mahadsantahay Muune Ismaaciil aad baad mahadsantahay waxaan sidoo kale iyagana salaamayaa qof kasta oo muuqaalkan uu gaaro oo daawada kuwa TV ka daawanaya kuwa podcast ka dhageysanaya YouTube kuwa ka arkaya dhammaan social media marka waan salaamayaa iyagana adigana waan ku salaamayaa runtii aad iyo aad baad mahadsantahay